dowlad goboleedyada madaxdeedu waa ku celinayaa horaan u sheegay waa kuwa soo dooray xildhibaanada labada aqal senatarada iyo xildhibaanada golaha shacabka iyagaa soo dooray waa loo qaybshay waa ogtihiin iyagaa keenay marka mar hadday soo dooreen ay dhaarteen ee xildhibaano iyo senataro qaran noqdeen shacabka iyo dowlad goboleedyada iyagaa matala waxa la siin kara waa talo hadda madaxweyne dowlad goboleed ma fadhiya madaxweyne Saciid Dani waa ka biyadiisan yahay waa walaacsan yahay hadda sheegaysaa kuwii kale maanta miyay fadhiyeen oo iyagu codiyeen maya xaq uma laha iyaguna inta fariistaan codeeyaan xaq uma laha xaq waxaa u leh dadkii ay soo direen ay soo dooreen ay yiraahdeen kaca ee matala golayaasha qaranka federaalka nagu matala marka haddii aad ka biyadiidan tahay waxa xun haddaad ka biyadiidan tahay xaqaad u leedahay in lagaa qanciyo laakiin wax fiican haddaad ka biyadiidan tahay aday kuu taalla wax fiicanan diida jannadii la aadaa lagaa qancin maayo haddaad diido iska bax naarta dooro barwaaqadaana loo socdaa ummaddu leedahay khayraadkan ha loo soo saaro dalku nabad ha noqdo kala dambayn iyo dastuur joogta ha yeesho ciddi diida dastuuraan joogta ay ha raadsato abaar iyo baahid ha raadsato sidaasay tegaysaa mugta ummadda Soomaaliyeed uma afduubnaan karto umana noqon karto hostage uma noqon karto dad dana siyaasadeed oo gaar ah leh shacabku waxay rabaan maanta ay dhaceen cidda ka maqan iyo cidda walaaca ka qabta waxaan ugu baaqayaa inay canuufteeda leeqdo inay dhinac ka raacdo cid diidaysa ma jirto cid albaabka laga xiranay ma jirto madaxweyne xasan sheekh wixii loo doorto ku dhaartay ayuu hogaaminayaa shakhsina maaha waa madaxweynaha qaranka golayaasha jooga meesha غير مسؤولية دهر كما موقته وودنيين وبريري إن وحن ومض معلوم لا يابنتها إلا قبحش دستور عن دمانين مدحوين مركز ترتم يميدوا البلان قاضيو هذا لو ده إسبورينا حتى ميني كحشوني شالو بلان قاضي هذه اللي دورته دستور كان دمستريا ما أنت موحول يا يلا دمستري من اللي بنته ودي ده مدحوين حسن شيخ وبريري ودبك دكتين مريا dagaal hogaamiye al-shabaab in la diro argagixisada maxaa khawaarijta guulaha oo keenay la wada ogyahay waa madaxweyne xasan sheekh nacbaamiya ma shaqaynayso Puntland waxa is haysto waa siyaasiyiintu haday dana gaar isku haystaana danahooda gaarka ah ka hadlaanaan kula talinaya haday dana umadeed isku haystaana danihii umadu maanta ay meel mareen wax kala go'aano kala laga filayaa Puntland anigu ma aaminsay Puntland gobonimada Soomaaliya doorkay ka soo cayaareen waa naqana midnimada Soomaaliya waxay ka aaminsan yihiin oo ogaa shacbiga Puntland marka ma khaldi karo siyaasi dan lahu inuu haadaan khalada ku hogaamiyo ma aqbalayaan midnimada iyaga ugu horeeyo ilaalinaya Soomaalinimada iyaga ugu horeeyo ilaalinaya cid ku goodin karta haddii tayada la diido dalkan kala goyna dalka cid kala goynaysa khiyaano qaran ay ku jirtaa sharci iyo waxaana ka yaala dastuur la bari ma maanta waxay ka dambeeyaan anigu dhowr jeer baan ka sheegay miidiyadan ka sheegay sharafna ka sheegay dawladnimo kuma timaada salaax iyo tuugme awoodii ku timaada awooda lagu meel mariyaa awooda lagu ilaaliyaa iyo sharciga dimuqraadiyadda marka aniga walaalka aad sheegaysaan ama siyaasiyiinta dhaysa wallahi waa la kala tagay xagee la kala aadaya waxa iska tagaana bal meel aad ma jirto ma waxay ku biirayaan khawaarij ma ku biirayaan no muraaday lahaayeen waa soo waaye dadkooda inay dhanac ka raacaan kula talinaya saaxiibaday dastuurkooda qoraya in ay go'aan gaari karaan hadii koonfurta waxa weeye Soomaaliya ay wixii ku darsan dastuurka dawlad goboleedka waxa ka weyn dastuurka qaranka iyo labada aqal ee shacabka iyo dawlad goboleedka mathalaya dastuurkooda waa dastuur gobol iyo qaran ma isku miisaan waxa meesha ay ugu qorteen siyaasi og baanahay aqoonyahan og baanahay shacabka Puntland ilaahu yaa maanta afti weydiiyay anigu wax badan baan ogahay oon xeerinaya marka aniga walwal ma qabo Soomaaliyana maanta wadada ay martay waa tii aan ku raadinaynay konton sano ka horeyna naga dhuntay wadadaas wadadii baa maanta la helay cidii wax tabanaysa mas'uuliyiinta ay ka tabanaysa hala fariisatay tira waxaan tabanayna madaxweyne xasan sheekh ilaahay ma awliyana ma waa hogaamiye la doortay oo waajib saaran yahay dhaartay qaybaan ka noqonayna anaga kulligeen cidow ka gardarayna dhan madaxweyne waa gardanatay joog laakiin xogasho iyo dacaayad iyo waxaan jirin iyo waxaan loo jeedin adiga dadan ku meesha cadawgan ka carab
macadu hadda meeshan joogo ma ka carare cadowgan ka carar laguma cararo waxaan rabnaa Soomaaliya way israacaysaa midnimada Soomaaliya gorgortan ma gasho shacabka Soomaaliyeed waa naga jecel yihiin annaga siyaasiyiinta waa kugu bilaabo dana gaar ah iyo waxba jira oo siyaasadeed laakiin shacabku dana gaar ah ma laha halowliya midnimada Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed oo si wanaagsan loo maamulo oo sharci ah marka wax walwala anigu ma qabo cidii su'aal qabtana cidii u qabtay inay weydiisan kula talinaya cidii laga gardaran yahaana inaan u heeliyaan anigu diyaar ah cidii gardaran inay loo gardan tay joog laga qarin maayo